madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ka ambabaxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho sidoo kale isagoo ku sii jeedo dalka Masar. wafdiga madaxweynaha la socday ayaa waxaa ka mid ahaa xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya waxaana garoonka diyaaradaha aadan cadde ku sii sogoontiyay madax ka tirsan dowladda. madaxweynuhu wuxuu ka qayb galayaa shir berri halkan ka furmaya kaasoo dalalka ku bahoobay jaamacadda Carabta iyo dalalka Midowga Yurub ay isugu yimaadeen salkan ku haya sidii iskaashi buuxa u dhaxmari lahaa labada dhinac iskaashigaas oo ku saleysan dhanka amniga iyo ganacsiga iyo sidoo kale xasiloonida labada dhinac sida looga shaqeyn lahaa. runtii ka qaybgalka shirkan ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu noo sahlayaa in kulamo gaar ah uu la yeesho iyo shir duceedyo madaxda ka socota dalalka Carbeed iyo kuwa ka socda wadamada Yurub. waxaan rajaynaynaa insha Allah madaxda uu madaxweynuhu la kulmi doono labada dhinac inaan kala hadalno oo la meel dhigno sidii ay u sii joogteyn lahaayeen una xoojin lahaayeen iskaashiga ay la wadaagaan Soomaaliya iyo taageerada ay la garab istaagaan dawladda Soomaaliya. waa mahadsantiin. Ibtisaam Suldaan Maxamed, Ibtisaam Fani, Som News TV, magaalada Muqdisho.